horta ummadda Soomaaliyeed waa dad iswada jecel abdidaantana shalay markuu jigjiga tagay waa dareemaynay sida loo soo dhaweynayo loogu soo sacbitumayay waxaan leeyahay Soomaaliya la isku naxariisto ninkan leeyahay Qadar Ibraahim Qadarkeeyoow horta waa nin aad u degan anshax leh oo degan oo boqolkiiba boqol oo aad u degan waa fanaan boqolkiiba boqol afgaaban runtii aniga waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed inay ka dhidhiyaan arrinkaasi maxaa yeelay ninkani ilaa aanada lama sheegi karo asbaabaha lagu xiray. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. asxaabta qiimiga qadarinta naga mudan aad ayaan salaameynaa team Munazal Media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar haddii aad hore noogu saartana mahadsanid war degdeg ah waxaa hadda soo dhacday in fanaan Qadar Ibraahim Qadarkeeyoow lagu xiray Itoobiya maxaa sababay iyo arrimo lamid ah Qadarkeeyoow shalay ayuu wuxuu ka ambabaxay Hargeysa asagoo aaday Itoobiya Qadar waxaa lagu qabtay laboorka laanta immigration ka qabatay xabsi laboorka oo ku yaala la geliyay ma fahmaysaa sidii wararka nagu soo gaareen Qadar asagoo halkaas ku jiro ayaa waxaa laga bixiyay isla shalato asagoo xabsi magaalada ku yaalo loo gudbiyay warkaasina waxaan fahmaysaa inta badan aan ka dhadhaminaynaa in fanaanka laboorka lagu xiray sababaha loo xirayna aan welina xaqiiqsanaynin baaritaanna uu ku socdo bal waxaad nala dhageysta cabdidaanto iyo wuxuu ka leeyahay. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baan idin salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta adduunka joogtaan. sababtan videoga usoo duubay oo hortiina usoo istaagay waxa weeyaan fanaan aad wada garanaysaan Qadarkeeyoow oo fanaan dhalinyaro caan oo Soomaalida geyga Soomaalida oo dhan laga yaqaan ayaa waxaa lagu xiray dalka Itoobiya sidaas darteed waxaan videoga usoo duubay in aan dadka u xaqiijiyo fanaanku inuu xiran yahay oo dadaalo badan aan maartay soo binay si aan wax badan arrintaas aan ugu ogaado ani shakhsi ahaantayda marka fanaanku waayahan maalmihii usbuuc u dambeeyay wuxuu ku sugnaa magaalada Hargeysa shalay ayuu wuxuu u socdaalay dalka Itoobiya gaar ahaan caasimadda Addis Ababa fanaanka meesha laanta immigration-ka ayaa kulay ku dhagtay sababaha runtii ay fanaanka u qabsadeen aanu hadda halkan kama xaqiijin karo laakiin waxaan idin sheegayaa in fanaanka shalay toole lagu xiray airportka xalay toolana uu meesha ku xidhnaa marka xalay markuu meesha ku xidhnaa baaritaan iyo kulay waxbaa socday baaritaankii iyo kulay hawlihii socday kadibna maanta ayaa waxaa loo qaaday xabsiyada magaalada dhexdeeda ku yaala laakiin meesha xabsiga uu ku xiran yahay fanaanka kulay hadda idinma xaqiijin karo waxaan isku dayayaa inaan wax badan ka ogaado insha Allah ilaa caawa waqtiga dambe ilaa berri gelinka dambe waxaan idin soo xaqiijin doonaa meesha ku xiran yahay dad ehelkiisa oo xagga jooga oo waalidkii laftirkooda waan la hadlay qadka telefoonka ayaan kula hadlay iyagana waxay uga codsadeen inaan dadka bulshada Soomaaliyeed aan la wadaago fanaanka inuu xiran yahay ay waxbana ka qaban waayeen marka insha Allah sidaas ula socda waan idin salaamay meel kasta adduunka joogtaan aad baan idin salaamayaa horta ummadda Soomaaliyeed waa dad iswada jecel abdidaantana shalay markuu jigjiga tagay waa dareemaynay sida loo soo dhaweynayo loogu soo sacbitumayay waxaan leeyahay Soomaaliya la isku naxariisto ninkan leeyahay Qadar Ibraahim Qadarkeeyoow horta waa nin aad u degan anshax leh oo degan oo boqolkiiba boqol oo aad u degan waa fanaan boqolkiiba boqol afgaaban runtii aniga waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed inay ka dhidhiyaan arrinkaasi maxaa yeelay ninkani ilaa aanada lama sheegi karo asbaabaha lagu xiray cabdidaanto runtii wuxuu leeyahay waa ku tala jirnaa baaritaano ayaan wadnaa wuxuu leeyahay waxaan ku tala jirnaa baaritaano ayaan wadnaa runtii ninkaas in la soo daayo oo ma fahmaysa haddii aan Soomaali ummadda Soomaaliyeed way ku murugsan yihiin xiritaanka Qadarkeeyoow Qadar Ibraahim Qadarkeeyoow cabdidaanto fariin ayaan u dirayaa cabdidaanto adigoo mahadsan boqolkiiba boqol waxaan ka codsanaynaa sida aad noogu soo gudbisay wararkani hadda aad nagu soo gaarsiisay in haddii ninkaasi la daayo xoriyadiisana oo dib u helo
inaad noogu soo jawaab celiso jawaabtaasna noo soo celiso waxaanu nahay dad walaalihiisa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ayaa ka dhidhinaysa kana murugaysan xiritaanka Qadarkeeyoow waxaan ka codsanaynaa mar labaad inaad noo soo gudbi doonto arrimaha iyo halka ay marayaan iyo ninkaasi in dib loo soo daayay xoriyadiisana oo helay waa mid aan anagana ka sugi doono aad ayaan u mahadsan tahay anagana haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed xiritaanka Qadar aad ayaan ugu dhidhinaynaa waxaan anaga ku faraxsanahay maahan waxaan u rajaynaynaa Qadar inuu ka soo bixi doono xabsiga oo xoriyadiisa dib u heli doono